kadib safar qaatay saacado oo uu shalay ku yimid magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu kulan albaabada u xirnaa uu la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya waxayna ka heshiiyeen qodobo dhowr ah shir jiraa'id oo si wada jir u qabteen waxay ku sheegeen in labada dal uu dhex marayo heshiis dhinacyo badan oo qayb ka ah ganacsiga dhaqaalaha isdhexgalka bulshada labada dal iyo sameynta suuq ganacsi oo xor ah warmurtiyeed ka soo baxay waxa lagu sheegay in la xoojiyo xiriirka labada dal iyo dhaqangelinta heshiisyada horay u jiray in la sameeyo ama la hormariyo dekedaha Soomaaliya si ay uga faa'iideystaan Itoobiya iyo dalalka kale in la dhiso jidad Soomaaliya ku xira Itoobiya ganacsigana la fududeeyo waxaana dad badan oo Soomaaliyeed ay u arkaan arintani inay tahay wada kale oo hor leh oo u furmaysa Itoobiya iyo Soomaaliya xagga xiriirka laakiin dadka qaarkii ayaguna waxay qabaan in tani ay tahay mid faa'iido badan ay ku qabto Itoobiya oo Soomaaliya wax dan aanay ugu jirin haddaba waxaan la hadalnay qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho oo aragtidooda sida tan u cabiray waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed in heshiiska 16 qodob oo cadada dhan halka saac iyo 45 daqiiqo lagu kala saxiixday inuu yahay heshiiskii DP World iyo Itoobiya iyo awal Soomaaliya ka dhaxeeyay oo la casriyeeyay oo haddana Itoobiya ay garwadeen ka tahay meesha awal Imaaraadku garwadeen ka ahaa hadda waxa garwadeen ka Itoobiya Soomaaliya waxaan u sheegayaa Itoobiya waa 72 milyan ilaa 80 milyan haddii marka iyo baraawe iyo Kismaayo iyo la siiyo afar dekedood oo Soomaaliya la socda culaysku wuxuu ku imaanay waa idinka waa inaga way inaga qaadayaan dhulkeena lagu talagalay lagu barakiyo waxa lagu goynay waa shacabka Soomaaliyeed waxa lagu goynay waa danta Soomaaliyeed heshiiskii shalay ka dhacay Muqdisho kaasoo ahaa mid aad iyo aad aan la yaabnay dadka Soomaaliyeed dawladda Itoobiya anaga u siyaadimayso waxbana waxaan u aragnaa in cid fidri loo siiyay ninkan dekadii Soomaaliya wax shaqeeyana ma aha wax aan raalli ka nahana ma hadana ummadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho waxaan uga digaynaa dhibaatada ay ka imaan doonto haddii ay sii socoto heshiiskaas oo la sii dhiirigeliyo ma aha wax dalka iyo dadka anfacahay Itoobiyana waxa u tiri mayso Soomaaliya madaxweynaha waxa uu baaqayaa dad shacabka ama dhalinyarta aan nahnay in oo isheeg oo nagu soo celceliyo ma aha waa inuu ka foojigsanaada marka maadaama oo isheeg si xun oo galeen oo tii hore nagu dhigeen ee ilaa hadda naga badbaadin hooyooyinkeen dhalinyarteena gabdhaheena dhan ay musuqmaasuq iyo ku dhameeyeen marka waxaan ugu baaqayaa dhalinyarta haddaananay isheeg madaxweynaha waxaan ugu baaqayaa inuu arintaas ka laabto wallaahi billaahi dhibaato aad u weyn baan u aragnaa heshiiska Soomaaliya iyo Itoobiya ka dhaxeeya waayo Itoobiya waxay ka shaqeysaa burburka Soomaaliya dan uma hayso Soomaaliya caqabad xun ayay hor keentay Itoobiya heshiisyada ay dibadda iyo caalamka ay kala timaaday ee ula timid dawladda Soomaaliya waxaan u aragnaa mid aad u xun oo mid khatar ku ah mid ku soo fooljigan khatar Soomaaliya Munasar Maxamed Cabdi Universal TV Muqdisho